waxaan kala tagnay ninkayga kadib ciidadii oo dhamaanin ayuu maalin caruurtiisa soo booqday kadib asagoo rajactu dhihin ayay gogolna dhaxmartay kadib waxaan ku iri arintan aad samaysay waxaan u qaatay inaad reerkaagi soo ceshatay kadib wuxuu igu yiri maanan ku soo celinin ee waa khalad dhacay kadib kulankaasi waxaan ku qaaday uur su'aashaydu waxay tahay ninka asagoo xaaskiisa rajactu dhihin ma u tegi karaa haddiise uu u tago isagoon rajactu ka ahayn zina miyay ku noqonaysaa canuga calool galay muxuu noqonayaa tafadal mashkuura masaladu waxaa weeye hadday dalqadii koobaad ahayd ama dalqadii labaad ahayd markaasay rajactu iyo isku soo laabadku furan yahay oo aanay saddexdii dhammaan saddexdu hadday dhammaato rajactu ma furna marka masaladu waa laba qaybood oo xiriirkaa gogolee dhex maray sidii eraygii ma u dhigmaa oo rajactu ma noqonayaa mise noqon maayo waa masale culimmadu isku khilaafsan yihiin aniga waxaa ila saxan rajactu erayna way noqotaa af ah ficilna way noqotaa haddii ciddadii oo gabadhu ay dalqadii koowaad ama labaad ka cidda tirsanayso xiriir gogoleed ninkii dhex maro reerkaasi dib buu isugu soo noqday sidii eraygu rajactu u ahaa buu ficilkana rajactu u noqonayaa rajactudana niyad uma baahna dalaaqa furitaanka iyo rajactu soo ceshigu niyad uma baahna in wixii uu ku asaxayay eray iyo adin ama fal iyo eraya la yiraahdo u baahan yahay nabiga calaih salatu wasalaam waa ka yidhi halaathun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun saddex dhabtooduna waa dhab kaftankooduna waa dhab waxaa ka mid ahaa talaaqu waalrajcatu soo ceshigaa ka mid ahaa saas darteed wuxuu noqonayaa gogoshaa dhex martay waxay ka dhigan tahay rajactu ilmahana saas darteed ilma si xalaala ku caloolgalay oo aabbihii ku abtirsanaya weeye wabilaahi towfiiq